Mr. President. Mr. Prime Minister. It's good to talk to you, and before anything else. hadalkan uu telefoonku hagayay ayaa waxa uu dhaxmaray madaxweynaha jamhuuriyadda la ictiraafay ee Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. wada xiriirkan tooska ah ayaa waxa uu xambaarsanaa fariin muhiim ah oo ah Israa'iil inay noqotay dawladii ugu horeysay ee aqoonsatay Somaliland maanta. ra'iisul wasaaraha dawladda Israa'iil Benjamin Netanyahu oo khadka telefoonka kaga soo jiray magaalada Tel Aviv ayaa waxa uu madaxweynaha Somaliland u sheegay inuu xilligan uu khadka telefoonka ku jiro uu saxiixay go'aanka dawladda Israa'iil ay ku aqoonsatay dawladnimada Somaliland. waxaana uu yiri I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and its right of self-determination. waa guul inaan kula hadlayo xilligan. inta aanan hadal kala bilaabin waxaan doonayaa inaan kugu wargeliyo in aan hadda oo aynu wada hadlayno aan saxiixay aqoonsiga rasmiga ah ee Somaliland. waana xuquuq ka tashi oo aad leedihiin. aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay uguna hanweynahay marxaladan maanta. waxaan wanaag badan u rajaynayaa shacbiga Somaliland oo ay u tahay maalintii ugu fiicneed abid ee ay wada sugayeen. madaxweynaha jamhuuriyadda la ictiraafay ee Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo khadka telefoonka jawaabtiisa ku gudbiyay isagoo farxadda laga dareemi kara hadalkiisa ayaa waxa uu sheegay inaanu maanta heli karin erayo ku filan oo uu kaga mahad celiyo farxaddan ballaaran ee qarqisay guud ahaan qalbigiisa, isla markaasina aanu xulan karin erayada uu ugu mahadnaqayo dawladda Israa'iil iyo shacabkeeda oo si buuxda u aqoonsatay dawladnimada Somaliland. dhacdadaasi oo ah markii labaad ee ay soo marto shacabka Somaliland iyadoo mar uu ahaa 1960kii iyo tan maanta oo ah tii labaad oo ictiraaf ay ka hesho Somaliland dawladda Israa'iil. madaxweyne Cabdiraxmaan waxa uu yidhi Mr. Prime Minister, I don't have enough words to express my deep thanks and wholehearted appreciation and sincere thanks to you, Mr. Prime Minister, your government and the people of Israel for giving the second time the official recognition of Somaliland in 1960 and today. maalin weyn ayay noo tahay maanta. waqti xaadirkan dadkayga iyo qarankayga oo dhan ayaa warkan sugaya. dadka Somaliland way faraxsan yihiin, way ku mahad celinayaan adiga iyo dawladda iyo shacabka Israa'iil. farxaddaasi oo ku timi aqoonsiga rasmiga ah ee Somaliland ee aad saxiixday saacadan aynu hadlayno waa daqiiqado muhiim ah. haddii aad ii ogolaatay mudane ra'iisul wasaare waxa aan gudbin doonaa fariinta rasmiga ah ee Somaliland ay ku qaabilayso aqoonsigan rasmiga ah. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo arrintaasi ka falceliyana waxa uu yidhi fadlan ku soco oo gudbi fariinta. If you allow me to read. Please do. The Republic of Somaliland warmly welcomes and deeply appreciates the historic and principled decision by the madaxweynaha jamhuuriyadda la ictiraafay ee Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo gudbinaya fariinta uu kaga jawaabayo aqoonsigan tooska ah ee ka yimi Israa'iil waxa uu yidhi jamhuuriyadda Somaliland waxay si diiran oo qoto dheer u soo dhaweynaysaa ugana mahad celinaysaa go'aanka taariikhiga ah ee ay qaadatay dawladda Israa'iil ee ku saabsan madax bannaanida iyo dawladnimada Somaliland oo ahayd mid rabitaankeedu yahay mid soo jireen ah. aqoonsigani waxa uu ahaa mid ka tarjumaya helista higsigii dheeraa oo ahaa in Somaliland ay gaadho dawladnimo caalamku aqoonsan yahay, taasoo salka ku haysa tiirar adag oo taariikheed, kuwa sharci iyo mid ku saabsan fikirka suuban iyo suuragalnimada in Somaliland ay noqoto dawlad madax bannaan. waxaa kaloo ay muujinaysaa dhacdadani xiriirka danaha iswaafaqsan ee labada dhinac iyo xiriirka soo jireenka ahaa ee labada shacab.